hay-ad ka mid ah hay-adaha Kirishtanka caalamiga ah oo la yiraahdo International Christian Concern waa hay-ad danaysa arrimaha Kirishtiyaanka caalamka waana hay-ad caalami ah waxa la aasaasay 1995 waxay ka diyaarisay Soomaaliya iyo Soomaalida Kirishtaamaynta ka dhex socda ayay report ka diyaarisay reportkaasi waxa la diyaariyay 28 bisha shanaad 2025 dhowr bilood ka hor reportka haddaan idiin soo koobo wuxuu leeyahay wadamada Kirishtanka ka socdo ee dadka la kirishtaameynayo meelaha ugu halis badan ayaa hay-adaasi Soomaaliya ka wadaan ayaa hay-adaasi loo soo gaabiya ICC ayay ka shaqeynaysaa waxayna la shaqeynaysaa masiixiyiinta iyo Kirishtanka qarsoon ee Soomaalida balad Soomaaliya ka wadaan in magacaaga Kirishtan loo gartay ay ka dhigan tahay in lagu qixiyo oo lagu xidho oo lagu dilo kaliya in lagu gartaba inaad Kirishtan tahay ayay ICC waxay ka shaqeynaysaa inay diyaariso mu'miniinta qarsoon mataqaanaan mu'miniinta waa kuwa Kirishtaamoobe ee ridoobay waa inay diyaariso mu'miniinta qarsoon qoysaska la dhibay in ay hoy u samayso in ay Kirishtaamaynta ay kaalmayso si injiil kitaabkii injiil iyo Kirishtanka si kor loogu qaado oo u hinqado mu'miniinta la takooray in la dhiirigeliyo in naftooda la badbaadiyo masiixiyiintu Soomaaliya dhexdeeda waxay ugu nool yihiin cabsi bay ku nool yihiin noloshooda ay u baqayaan mar aan booqanay bay leedahay hay-adu aan Soomaaliya booqanay 2024 waxaan la kulannay mu'miniin baan caasimadda kula kulannay yani kuwa Kirishtaamoobe waa mu'miniintaasi waxay u wateen diintooda si qarsoon oo aan marnaba la dareemaynin dadkii hawshaasi hawlwadeennada ka ahaa ama maareeyaasha ka ahaa ayay ICC waxay la kuntay kulantay xubnahooda qarsoon ayay Soomaaliya kula kulantay waxayna u xaqiijiyeen dadka hadda magaalada Muqdisho jooga ee Kirishtaannimada qaatay in ay gaadhayaan 1500 oo ruux oo qarsoon in badan oo ka midana diinta way ka tageen oo islaamnimadoodii way ka tageen markaas waxay ka hadleen aragtida bulshada muslimkii ay ka qabto in diinta laga tago waxay yiraahdeen in diinta islaamka laga tago diin kale la qaato ama la Kirishtaamoobo waxay ka mid tahay bulshada Soomaalida dhexdeeda khiyaano وكذلك كوحها هبيسنا سيداسي كرميسي أرنكاسو كينيسو إن أي دادكو قريهو دا كعرران أو أي قيسسكو دا كعرران أو أي دينتو دا كعرران عبسي أي نلفوه دا أبقيان سيداس درادي وحيلي يسير لوغا جواب باهيدا دادكاسي أي قبان أو أي أباهيهين قري أي كنا بدقلان أي ICC وهي أدواي waxay samaysay oo abuurtay shabakad guryo ah network guryo ah oo isku xiran bay ka samaysay Soomaaliya gudaheeda guryaha iyaga ah waxa ka shaqeynaya oo isku xiraya hogaamiyayaal Soomaaliya oo Kirishtaamoobe oo lagu kalsoon yahay oo naftooda ayaguna kala badbaaday cabsi gelin iyo khatar ka badbaaday iyo weerar la soo weeraray waxa suurtagal ah in kirada bisha dadka laga bixiyo oo lagu taageero
si ay hawshooda u wataan iyagoon cadaadis dhaqaale dareemin arrinkaasoo u suurtagelin kara dadka kirishtamoobay inay si caafimaad iyo qarsoodi ay iimaankooda ku kobciyaan oo ay waddanka ugu noolaadaan wuxuu ka sheekaynayaa hal guri oo guryaha ka mid ah oo magaalada muqdisho ku yaalla oo kireeyeen ayaa waxaa ku nool bay leeyihiin 20 ruuxba hal guri ku nool oo ku dhuumanayo halkaa ku wata diintooda ku wata kuwaas oo ka soo cararay degmooyinkoodii iyo tuulooyinkoodii ka soo cararay qoysaskoodii iimaankooda la soo cararay iimaanka cusub ay masiix rumaysan yihiin ICC waxay leedahay maalgelinta iyo taageerada ay siiso ICC daraadeed ayaa hogaamiyaasha Soomaalida ee lagu kalsoon yahay waxay gudbiyaan cuntada guryaha daryeelka ruuxiga iyo wixii la mid ah ayagoo arrimahooda si aad ah u qarinaya oo ismuujinay hal gabadh bay ka sheekeeyeen haweeney ah oo gobolada waqooyi ka shaqeysa magaceeda la sheegi maayo waxay leeyihiin gobolada waqooyi waa si hadalka u dhigeen oo Soomaaliya ka mid arrimaha waxa hogaaminaysa gabadh kalkaaliye caafimaad ah haweeney kalkaaliye caafimaad oo mumarrida ah isbitaalada ka shaqeynaysa waa isbitaalada ku yaala waddanka kadibna xariifnimadeeda iyo kartideeda ayaa waxay u maraysaa inay jaranjarro ka dhigato kaalmada caafimaadka ee dadka u fidinayso inay ka dhigato jaranjarradii ama buundadii ay ku gaari lahayd caruurta iyo dumarka si ay u kiristaamayso oo fiirsada yani waxaan loo soo dirayaa dhaqaatiir kalkaaliye caafimaad waa hay'ado dhaqaalo abaarahay ka shaqeynayaan cuntay idin qaybinayaan naxariis bay idin tusayaan laakiin luqmadda maxaa ku hoos qarsoon waa ninkii la helo waay waa gabadh kalkaaliye